الحمد لله رب العالمين walaalaha sharafta leh kusoo dhawaada brograamkii aan nolosha dhabta oo badan aan kaga soo baxa dugsi alkhayr oo ku yaala xaafadda hays london maanta ay taariikhda 16 tahay bishii 7 2018 brograam yar oon ummadda soomaali aan isleeyahay ama anfacdaa anigana anfacdaa ayaan halkan kusoo gudbinaya oo ku saabsan fasaxyada iskuullada la aadaya iskuulladii qurbaha haddaa la xirayaa mataqaana waxaan u malaynaa wiigan soo socda ayaa la xiri doonaa maanta waa 16 wiigan dhexdiisa ayaa la xiri doonaa 16 juulaay waaye marka fasaxyadan waa waktiga iskuullada la xiro waaye marka dad badan oo soomaaliyeed maraykan ku nool australia ku nool yurub ku nool badana waxay aadaan dalalkii carbahay aadaan afrika ay aadaan marka waxaan isleeyahay waa waktiga u habboon oo caruurta loo soo faa'iideyn karo waktigan isaad taqaanaan alla subxaanahu watacaala wuu ku dhaartay muhiimkiisa wuxuu yihi walcasri ina alinsaana lafii khusr yani casirka ama zamanka ama waktigan ku dhaartaye bini aadamka khasaaray ku sugiinu yiri dhammaantood sababtoo waktigay ku ciyaaraan kama faa'iidaystaan mataqaana waa taqaanaa walleyli idaa yaksha haye waduxaa walleyli idaa sajaa walfajr waktiyaasha muhiimkooda ayuu ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka ugu soo deji oo ku dhaaranaya asxaabteeni ridwaan ullahi calayhim haddaan mid kasoo qabsano saxaabiga jaliilka oo taqaanaan cabdullahi bin mascuud wuxuu yiri ibn mascuud wuxuu yiri maa nadimtu calaa shayin kanadami calaa yowmin garabat shamsuhu naqasa fiihi ajalii walam yazid fiihi camalii saan ugu murugoodi maalin ma jirto saan ugu murugoodi maalin ay qoraxda dhacday oo waktigeydiina wax ka go-een ajalkeydii waktigeydii wax ka go-een anigana maalintaas aan wax ka faa'iideysanin mar aan ka qoonqoomiyo mataqaanaa ka shalaayey ma jirtuu yiri marka waktigii muhiimkiisa ee saxaabtay ridwaan ullahi calayhim ka fikri jireen marka waalidiin fara badan waxaan kala u dardaarmayaa carruurta markaad dalka geysaan fadlan u faa'iideeya oo geeya dugsiyaasha waxaa kaloo idinku baraarujinaya waktiga markaan xisaabnay anigii waalid oo dugsigeyda carruurta u dhigtaan runaantii 2 bilood oo africa carruurta la geeyey meel ay ka noqotoba markaas iyada ninkaas carruurtiisa wuxuu geeyey kenya ayuu geeyey kenya marka 2 bilood oo dugsi geeyey dugsi africa waad aragtaan waa 12 hours 6 to 6 waay waqti baan isla xisaabnay waalidki 2 bilood in adeeryaalo waxay u dhikantay 5 sano oo dalkaane 2 bilood waqtigii macalinkaas u dhigayay 6 to 6 markaan saacadihii xisaabnay oo saacadihii halkaanaan xisaabnay sanad markaan wada xisaabnay waxay u dhikantay 5 sano dalkaana adigaba xisaab 2 saaca meeshaan la dhigaa ama meelaha ugu badan 3 saaca la dhigaa xisaab isku dhufo 12 saac ku dhufo marka waa waqti aad u badan 5 sano waqtigan maxaa yeelay meeshaan carruurta waqti maayaan mar tuushan la geynaya mar iskuul la geynaya mar swimming la geynaya mar football la geynaya mar mataqaana ay game ciyaarayaan waqti ma hayaan sabti hadda macalinka loo keenayaa waqti badan male marka waxaan waalidiinta soomaaliya meel kastoo iska tegaysan ama maraykan ama australia ama yurubta aan kula dardaarmaya waqtigaa laga soo faa'iidaysta nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri iqtanim 5 qabla 5 war shay ka faa'iidayso yiri 5 shay ka faa'iidaysa 5 shay oo run ahaantii oo xun intay ku imaadin ka hor maxaa ka mid ahaa waqtiga aad firaaqa leedahay intaadan mashquulin ka hor mar haddaad mashquulso waxba ma qaban karta ayaa ka mid ah marka hadda markaad mataqaanaa xamar aadid kismaayo aadid garow aadid somalilan aadid mataqaanaa hargeysa aadid kilka shanaad aadid kenya aadid carabaha aadid waqti badanaad haysataa marka waqtigaas isaga carruurta looga soo faa'iideeyey waxaa kaloon kula dardaarmaya macalimiinta dugsiyaasha qurbaha joogo ama maraykan joog ama ingiriisiga joog ama yurubta joog waalid kasta markuu cunugiisa soo celiya la xisaabtan waxa bal eeg cunuga inta yarood bartay inay ka soo dhumeen iyo inuu waalidku wax u soo faa'iideeyey u dardaaran haggeeye macalinka dhabtaha macalinkeena dhabtahay halkaas uu jooga dalkeeni buu jooga macalinka dhabtaha oo carruurta soo saari jiray dufca halkaas uu jooga 2 bilood 5 sane oo macal cusmaan u keentid ama macalimiin yurub maraykanka u keentid ay u dhikantaa 2daas bilood oo macalinka dhabtahay u geysa marka fadlan waa idin baryaa waqtigan lagu soo ciyaarin carruurta loo soo faa'iideeyo diinteenna laf dhabarkeedii meesha aan ka soo qaadana waa dalkeena ama qaaradda afrikaba iska dheh ama carabaha iska dheh
bartaasaa loo baahan yahay cunugu markastoo fasaxa la geeyaba in loo soo faa'iideeyo maaha inta maashaal iyo waqti dhumays. waa run cunugii fasax buu u tagay, runaanti hataa macalinka waa loo sheegi karo, la dhihi karaa saacado kooban 12 hours waxaa laga yaaba meeshan intuu ka tagayo fasax u socdo, laakiin waqti kooban macalinka ha loo geeyo, waa lala soo heshiin karaa. waalidiin markood waxaa laga yaabaa inayba ayba danka gelin oo carruurta toos u geeyaan dugsiga, laakiin waalidiin laga yaabaa inay qaraabo saraan iyo meelo aadiyaan, waqtigoo dhan ha ku ciyaarin. cala alaqal ugu yaraan wixii meeshan uu ka bartay yuusan hilmaamin. kuwo badan waxaa jira marka xagga la geeyo lasoo celiyey wixii yaroo meeshan ku barteen hilmaameen haddana dib loo bilaabay wixii oo dhan. marka ilaahay subxaanahu watacaala nagu anfaca waanada culummadeena badanana siinayaan. ilaahay subxaanahu watacaala kuwa carruurteenna tawxiidka ku shub allah naga dhiga, tawxiidka kuwiis alla ku tallaala si waalidiinteen ay noogu soo tallaaleen iyo culummadeenna kuwii ku tallaala annagana allah naga dhigo, oo mataqaana ikhlaas u niyado diintan yurubto. run ahaantii alxamdulilah wax badan baa ka socda, dhaqan fara badan ka socda. that's why dad badan waxaan ku boorinaya macalin dugsinimada loo soo noqdo. macalin dugsinimada waa sharaf, waa wanaag, waana dhaqan darto waad ka helaysaa insha allahu tacaala. marka kuwii tawxiidka ku tallaala allah naga dhigi insha allahu tacaala. baaraka allahu fiikum, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.